السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت محني وذا الرن نحدين له وأنا إذا نحسي داوذي هذا شكلنا مس هذا كان أقول الشرقية أذن أنا الدقات ولين بيلني إن داوته وأرن نحدين له hooyooyin badan leh ka oysiisay daawade ma og tahay caruurta Soomaaliyeed inay la gaaleen rabo mise qaar la wagaaleeyay Sweden waana khiyaanada xuquuqda dumarka waxay sameeyaan socialist-ha gabdhaha ayay khiyaamayaan intay u tagaan ay waxay leeyihiin waa la sasaba waa la salaaxa dhabanada laga dhunkana waxa la leeyahay gabaray adan kula jirna ninkan ka soo horjeedna adigan ku rabna adigan ku badbaadinayna janna adduunyan ku gelinayna gur wada dhalaha lagu dejina lacag badan helaysa ilmaha lacag ku qaadanaysa ka soo tag ninkan gabadhii markay khiyaanada gasho daawade ma og tahay sida loo gaaleeyo caruurta Soomaaliyeed dalka Sweden meeqamal ayaa sheekooyin noocaas ku yimaatay dhageys ana ku sheegaya hooyada Soomaaliyeed ooynayso sida looga aqal badiyay ana ku sheegay dhageyso gabadhi waa laga wadaa Afrika ayad isayeeda iyo caruurti si qurux badan ayaa laga dejinayaa wadanka Sweden. Welcome ayaa leeyahay to Sweden. maalmo ka dambe markay gabadha ay afarta gees Sweden ku wareegato dagto nasato ayaa ninkii cadaanka ahaa albaabka ku soo qaraacaya waxa leeyahay maalintaas waxa leedahay meeting office-kaas noogu imow hooyadii ayadoo farxan qurux badan tartiibteeda office-ka Monday Tuesday maalintii laga balamiyo waatu taagan tahay ma og tahay waxa loogu yeerayo wax kale ma aho soo dhaw ayaa lagu leeyahay soo dhaw wadanka Sweden Halimo Afrika hadduu ninkan ku kontrooli jiray oo ku talin jiray oo madaxa ka haysan jiray oo biilalka ku xisaabin jiray meeshan waa wadan madax banaan nin ma kontrolo nin kuma talinayo biilna ha ka walwalin Halimo ciil ku qabtay haweeno badan cisho badan aad dib u keensato ku isisay meelay ku qaninto raasanaysay jannadii la keenay maxay sameynay hada si khaldan canjuftu tufto albaabka ay ka saaraysa markuu saaxiibka iswaalo because khilaaf laba qof oo guriga joogto way dhacaysaa ballantii laga qaaday iyo hadalladii laga dhacsiiyay ayay ku dhaqaaqaysaa waxay dhaysaa wariyaah intii kuleetiga qabsato meeshan Afrika ma aho bax yaa soo haraya hooyadii iyo caruurti ayaa soo haraysa maalimo ka dambe hadana ninka odayga gow uu imaanaya hooyo maxaa isku stress garane maxaa u fikiraysaa gurigan buu stress iyo wax buu ku soo xasuusinaya ka wasoo gur hooyadii sidii ayaa lagu qaaday iyo caruurti waxa la geynayaa dhul cadaanka ay ku badan yihiin meel tuule ayaa la geynayaa xala dhahaya daawooyinkan isticmaal pressure iyo stress ku ka yareynaya anaga waxaan rabnaa qof degan caafimaadkaada ayaan ka shaqeynaynaa ciyaalkaada korso inay daawooyinkan la siinayo waa daawooyin ka sii waalayo oo maskaxda xog u shaqeynayso keenayso stress inuu ka daro pressure inuu ka daro fikirka inuu ka daro
markii la arko hooyadii inay waalanayso ee habableynayso ee ilmihii cunayso waa say u rabeen albaabkay kusoo qaraacayaan haddii saan stress iyo hooyadan foom ayaa laga buuxinaa warqad way waalan tahay caruurta ma hayn karto saan iyo saan waaye ilmihii hala kala fogeeyo iyo hooyadan ilmahan aan badbaadino hadalkaas isticmaalaan ilmahan waa in la badbaadiyaa waa in la badbaadiyaa meeshii ay keenayso hooyadii iyo ilmihii inay la kala fogeeyo hooyadii ay sii waalato hooyadii ay oyso ay isgaran weyso ay dharkeeda ka cararto wallaahi waxaan ka naxsanahay sanadaha hadda soo socon doono inii la arko dad Soomaali ah mise Soomaali u eg عندها ku qaban karta waa Soomaaliya 60 sano 40 sano 50 sano lama arkin jidka la isku horimaan doono dad Soomaali u eg laakiin aqliga wax ka si ah diin haysanin dhaqan Soomaali haysanin aqli lahayn oo wax dhaldaan camal leh u dhaqmanayo qof weyn oo 40 60 50 sano jiro ayaan ka cabsanayn in la arko haddii maxal laga soo wada hadli waayo dhibaatooyinkan hadda socdo dadka u qaadanaya wax raqiisan la fiirin waayo wallahi billahi waa ka cabsanaya oo ka naxaya inay dad noocaas ay soo bixi doonaan Sweden waana khiyaanada xuquuqda dumarka waxay sameeyaan socialitionistaha gabdhaha ayay khiyaamayaan intay u tagaan ay waxay leeyihiin waa la sasaba waa la salaaxa dhabanada laga dhunkana waxa la leeyahay gabaray adan kula jirna ninkan ka soo horjeedna adigan ku rabna adigan ku badbaadinayna janna adduunyan ku gelinayna guri wada dhalaha lagu dejina lacag badan helaysa ilmaha lacag ku qaadanaysa ka soo tag ninkan gabadhii markay khiyaanada gasho oo Sweden waana khiyaanada xuquuqda dumarka waxay sameeyaan socialitionistaha gabdhaha ayay khiyaamayaan intay u tagaan ay waxay leeyihiin waa la sasaba waa la salaaxa dhabanada laga dhunkana waxa la leeyahay gabaray adan kula jirna ninkan ka soo horjeedna adigan ku rabna adigan ku badbaadinayna janna adduunyan ku gelinayna guri wada dhalaha lagu dejina lacag badan helaysa ilmaha lacag ku qaadanaysa ka soo tag ninkan gabadhii markay khiyaanada gasho